markabka dagaal ee dalka Mareykanka laga leeyahay ayaa mar kale waxaa lagu arkay dhinaca iyo biyaha bariga dhexe. afhayeen u hadlaya ciidanka dalkaasi Iiraan Abulfadl Shekariji ayaa waxa uu sheegay in ay garaaci doonaan magaalooyinka Tel Aviv iyo Haifa, waxaana uu sheegay in ay dhulka ay ku dari doonaan haddii Israel ay fuliso qorshayaasha ay ku doonayso in ay ku bartilmaameysato xarumaha hubka nukliyeerka ee wadankaasi Iiraan. arrintaasi oo timid kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo midda difaaca ee dalkaasi Mareykanka ay u soo direen ayaa la yidhi markabka B-52 dhinaca biyaha bariga dhexe markii lixaad si uu uga jawaaba ayaa la yidhi waxyaabo ay dowladda Mareykanka ay ku tilmaamayso cadowtinimo. taliyaha ciidanka Israel Afeef Koqafi ayaa isagu waxa uu sheegay in ciidanka Israel ay u diyaar garoobeen suurtagalnimada in weerar ay ku qaadaan xarumaha hubka nukliyeerka wadanka Iiraan. telefishinka qaranka ee dalkaasi Iiraan ayaa waxa uu soo xiganayaa afhayeenka ciidamada wadanka Iiraan Shekariji oo isagu sheegay in hanjabaadaha Israel in uu yahay ama ay u qaadanayaan dagaal ka dhan ah dowladda iyo shacabka wadankaasi Iiraan ay iyaguna ay diyaar garoobeen. ciidanka wadankaasi Iiraan ayaa waxa uu sheegay in ay ku talagalayaan in ay burburiyaan saldhigyada gantaal ee Israel haddii ay dowladda Iiraan iyo shacabkeedii ay la kulmaan daandaansi ama weerar dhinaca cirka ah. waxa uu sidoo kale afhayeenka uu sheegay in ciidamada Iiraan amar lagu siiyey in ay cagta ay mariyaan magaalooyinka Tel Aviv iyo sidoo kale Haifa haddii Israel ay u istaagto in qalad ay ka gasho dowladda wadankaasi Iiraan, sida uu hadalka u dhigay afhayeen u hadlay militariga wadankaasi Iiraan. Maxamuud Waacidi agaasimaha xafiiska madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa isagu waxa uu sheegay in hanjabaadaha ka imaanaya Israel ay ku soo beegmayaan iyadoo dowladda wadankaasi Iiraan ay u diyaar garoobeysay in maamulka cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden cunaqabateynta uu ka qaado, balse waxa uu tilmaamay in tani ay noqon doonto dagaal nafsiyan ah oo ay naftooda ay ku difaacaan. Israa'iiliyiintu ma lahan ayuu yidhi qorshe ku saabsan awood ay ku weeraraan wadankaasi Iiraan sidii hadalka uu dhigay. la taliyaha hogaamiyaha dhinaca diinta ugu sareeya ee arrimaha difaaca Colonel Hussein Dahqan waxa uu isagu sheegay in waxyaabaha ay fidinayaan cadowga Yahuud aysan ahayn mid ay kula soo kici karaan weerar ay ku qaadaan Iiraan sida uu hadalka uu dhigay. Dahqan waxa uu sheegay in ay iyagu ay isdifaaci doonaan haddii ay arkaan waxyaabo u muuqda weeraro suurtagelin kara in la weeraro xarumaha hubka nukliyeerka wadankaasi Iiraan. safiirka Iiraan ee qaramada midoobay Majid Taqad Rawanji ayaa isagu waxa uu sheegay in wadankiisa uusan ka labalabeyn doonin in ay iska difaacaan Israel. sidoo kale waxa uu sheegay in awood midii ugu dambeysay ay ku maqoonin doonaan haddii Israel ay u soo bareerto in ay weerar ay ka geysato wadankaasi Iiraan. waxa uu sidoo kale uu sheegay in Tel Aviv waxyaabaha ay hadda ay wadato uu yahay been iyo sidoo kale khiyaano si u muujiso ayaa la yidhi barnaamijka nukliyeerka wadankaasi Iiraan in uu yahay mid handadaya xasiloonida bariga dhexe. ilaalada kacaanka wadankaasi Iiraan iyo sidoo kale ciidanka guud ee dalkaasi ayaa la sheegay in loo diyaar gareeyay in ay iyagu ay ka jawaabaan suurtagalnimada weerar Israel ay ku qaado wadankaasi Iiraan. 2 toddobaad ka hor waxa ay soo bandhigeen ciidanka Iiraan dowlatus military oo suurtagelin kara ayaa la yidhi in ay uga hortagaan cid waliba oo wadankaasi ku soo duusha. dowlatuskaasi waxaa ka mid ahaa sida loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, gantaalada ridista blastikada iyo sidoo kale in ay iyagu ay soo ridi karaan ama ay ka hortagi karaan gantaalada lagu soo gano. dowladda wadankaasi Iiraan ayaa ka jawaabtay qorshaha taliyaha ciidanka Israel ee uu sheegay in ay ku diyaariyeen weerar military oo ay ku qaadaan waqti dhow dowladda wadankaasi Iiraan. waxaa Iiraan ay sheegtay isku day waliba oo lagu soo qaado in aysan waxba ka qaadi doonin Israel dowladda wadankaasi. taliyaha Israel oo ciidanka Israel oo isagu khudbad ka jeedinaya macadka baaritaanada heer difaaci jaamacadda Tel Aviv
ayaa waxa uu sheegay in ciidankiisu ay sanadkii 2020 ay weerar ay ku qaadeen 500 oo saldhig oo bariga dhexe ay ku leeyihiin ilaalada kacaanka waddanka Iiraan, gaar ahaan waddanka Suuriya, halkaasi oo la burburiyey. waxa uu sidoo kale uu sheegay in ciidamadoodu ay u diyaarsan yihiin weerar suurtagal ah in lagu galo waddankaasi Iiraan. ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay inaysan ogolaan doonin in Iiraan ay hesho hubka nukliyeerka. khudbad uu ka jeedinayay goob xaflad ahayd, waxa uu tilmaamay in haddii ay hesho ay noqon doonto mawjad weyn oo cadow iyo sidoo kale mid saaxiibada gobolka ku sugan si aada u saameysa. Netanyahu waxa uu shaaca ka qaaday in Israel ay difaaci doonto dhulkeedii haddii ay sii socoto hubka nukliyeerka oo dowladda waddanka Iiraan ay soo saareyso. wasiirka difaaca Israel Benny Gantz ayaa isagu waxa uu shaaca ka qaaday in wadahadalka dowladda cusub ee Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan ee malafka ku saabsan nukliyeerka waddankaasi Iiraan ay ka baajin doonto amaba aysan suurtageli karin, maadaama uu tilmaamay in Iiraan ay iyadu ay ku xadgudbayso shuruucdii hore loo dhigay. laamaha amniga Israel ayaa waxa ay shaaci ka qaadeen in ay si wada jira uga hortegi doonaan in Iiraan laga hor istaago in dowlad hubka nukliyeerka haysata ay noqoto. Tel Aviv waxa ay adeegsan doontaa ayay yidhaahdeen dhammaan wadooyin walba oo suurto gelin kara mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid sirdoon iyo amniba si looga hortago Iiraan in ay hubkaasi nukliyeerka yeesho. madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden oo isagoo toddobaad ka hor xilka la wareegay ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Washington ay dib ugu laaban doonto heshiiska nukliyeerka Iiraan. waxaana sidoo kale uu sheegay in xukuumadda Tehran ay iyadu ay sameyso sidii ay dib ugu soo laaban lahayd heshiiskii taariikhiga ahaa uu sanada ka hor isaga baxay madaxweynihii xilka ka degay Donald Trump. madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani waxa uu sheegay in xukuumadda Tehran ay si aada ay u fulin doonto qodobada beesha caalamka ay kula gashay sidii cunaqabateynta looga qaadi lahaa Iiraan. Ruuxaani waxa uu sheegay dhammaan wadamada caalamka marka laga reebo Israel iyo dowlado kale oo yaryar in ay hadda ay doonayaan in dib loogu laabto heshiiskii nukliyeerka. xukuumadda Tehran waxa ay ku hanjabtay in ay iyadu ay meesha ay ka saari doonto ama ay suurtaag ay ku sameyn doonto shaqada kooxda baaritaan ee ka socota wakaaladda tamarta adduunka ee la socodka nukliyeerka dalkaasi Iiraan oo 22 Febraayo doonaya in ay gudaha waddankaasi Iiraan ay tagaan. wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov iyo Maxamed Jawad Zarif waa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan waxa ay ka wada hadleen ahmiyadda weyn ee ku jirta in la dhowro heshiiska nukliyeerka. labada wasiir oo iyagu wada hadal yeeshay waxa ay shaaci ka qaadeen in ay sii wadi doonaan sidii ay dowladda Mareykanka cusub ay dib ay ugu soo celin lahaayeen heshiisyadii beesha caalamka ee nukliyeerka waddankaasi.